wuxuu yiri ninbatiisu waa dhimantaho tooga beel male sawaariikh nin taabiya ninkii toori bira haysta ninbatu awoodaba dil way isugu tageena waagi Soomaalidu goobta ahayd anu ma oranayo waxaa jira wax la dhaho United Nations haduu jirana waa aalado gaaladu ay u samaysteen ummadda muslimka inay ku muqooniyaan ma oranayo waxaa jira hay'ado xuquuqul insaan oo ilaalinaya bini'aadanimada mideeda kale ujeedada guul kaliya ma inaad diidid gaalnimada inaad diidid dhulkaaga in laga qaado inaad diidid in naftaada iyo maalkaaga iyo dhulkaaga lagugu yimaado oo laga qaato oo aad ku shahiidid ama aad ku dhimatid waa shahaada way man qatala duna diinihi fa huwa shahiid qofkii isagoo diintiisa difaacaya dhinta waa shahiid ومن قاتل دون ماله فهو شهيد هنتدي سيسقو الدفاع يقفك دنتانا وشهيد ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد قفك يسقو الشرف كي سيعرضك الدفاع يدنتانا وشهيد يا ماشي وحادرين يا يهود يا نصارى اسوة أودو دي يكوح يرقوا مسلمين تا 2 مليار كدونا كوب شها معانا انكران سببته اوام حي اول با waa la hor joogaayo halkiina ku gaadiya janna lagu galaayaba hays dhaqaajinina waxba ma qaban kartaan hadaad ka hadashid qadiyada Gaza argagixisa tahay hadaad ma aragtaa u hiilisid argagixisa tahay hadaad saas yeeshid saasa tahay buu ku oranay nin taraam la dhaahad adduunka u soo baxay anu waxaan isleeyahay ninkaas ilaahay baa u soo diray inuu awoodan gaalada ee hadda de meel loo maara waayay inuu burburiyo wuxuu yiri madax badan oo caalamka ay baryaysan waxay leeyihiin canshuurta naga dhig kaala hantida dalka iyaga qaado ilaa uu afxuma intuu ka gaaray wuxuu yiri hatta waxay yiraahdeen dabadaanu ka dhunkarayno halkaas adduunku maraya waa adduun sharaf dhimatay waa adduun gobonnimo dhimatay waa adduun iimaankii dhintay waa adduun qiiradii dhimatay waa adduun raganimadii dhimatay waa adduun leys gumaystay inta lagu kala adkaado lillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب وأتفهم يسين خطبة وحيكو صعب سنيد ولا لهن غير فلسطين خاصة غير غزة أو عدوانكي إيا دقالكي إيا دقينتي إيا دبرقوينتي أي كسو نقطي رنتي قوادها ku dagaalamaya Gaza isuma dhigmaan yahuuda oo jeeshka afraad adduunka haysata oo ay daba joogto dawladda adduunka ugu xoog badan xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda xagga ciidanka oo dawladda Mareykanka iyo dawlado badan oo gaalo ah iyo kuwa badan macal asaf oo muslimiin sheegta ayaa waxa weeye waxay la safan yihiin yahuuda meeshaasna waxaa jooga dad kooban meeshaba 2 milyan iyo xoogaa baa degan dadka kooban oo halka jooga ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu waafajiyay in ay iska muqaawameeyaan oo ay ka hortagaan isticmaalka ay ka hortagaan kibirka iyo qooqa al-islaamiyya la hawla laha wala quwwa tabar iyo taag midna ma hayso sababkuna wax kala ma aha shucuubtu waa diyaar wax badan bay qaban lahaayeen wax badan bay tari lahaayeen laakiin mushkiladaha jirta waxa weeye dawladihii dhulka xukumayay ayaa waxay noqdeen inay u hoggaansamaan oo isu dhiibaan Mareykanka iyo wuxuu cagaha ku qaato anu ma oranayo waxaa jira wax la dhaho United Nations haduu jirana waa aalado gaaladu ay u samaysteen ummadda muslimka inay ku muqooniyaan ma oranayo waxaa jira hay'ado xuquuqul insaan oo ilaalinaya bini'aadanimada yani waxa weeye gaalo hatta koodi ganacsadaha ahaa waxay la soo baxeen wajigoodii saxda ahaa Soomaalida gal waataad arkayseen gabadha yar iyo Microsoft wixii kala haystay maxay Microsoft ninka iskala Bill Gates wuxuu dhaqaalihiisa ku bixinaya inuu yahuuda taakuleeyo inuu yahuuda u hiiliyo soo ma jeed markii gabadhaas meesha ka shaqaysa ay tiri hantidiina dadka iyaga lagu leynaya ma aqbali karno ma yeeli karno ya gabar maghrib al-arabi ka soo jeedo gabar yara buuqi meesha ka dhacay waa la ogaa ka bacdina shaqada laga cayni iyaduna intay soo fariisatay waxay tiri waa in Microsoft wixii soo dhan la gooyaa arintaas oo runtii arrin wax tar leh maxay yara waxaad arkaysaan cid alla cidii iyaga la jirtay oo dadka muslimiinta ahi ay muqaataca ku sameeyeen xeradooda ka tabeen
لذلك دقال سودق مماه لكن إلهي سبحانه وتعالى وحليه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مدى ذكله إلهي يعني محليه محا كوحير أي إلهي إذن كي كأتكاتي كوحيو قوي وكبضا مدى ذكله وجدد قول كلية ما إنا ديدد قال لماذا إنا ديدد نلقاق إلا قاقادو إنا ديدد إن naftaada iyo maalkaaga iyo dhulkaaga lagugu yimaado oo laga qaato oo aad ku shahiidid ama aad ku dhimatid waa shahaado weey man qatala duna diinihi fa huwa shahiid qofkii isagoo diintiisa difaacaya dhinta waa shahiid waman qatala duna maalihi fa huwa shahiid hantidiisa isagoo difaacaya qofkii dhintaana waa shahiid waman qatala duna cirdihi fa huwa shahiid qofkii isagoo sharafkiisa iyo cirdigiisa difaacaya dhintaana وشهيد لذلك خصب معها ضدك أهل الحق أهمر والبئين يقوليستان ضد بدن أنبيو نبيا لكين دونا قيامها أن قفراعين ضد باجرها البيقود ويهي وحنو هدو حقي محو يقوليسان واي حق وحال ربعينو أسباب تقاطو هدوسا أسباب تقاضا يا ماشا وحاديري ريا يهود يا نصارى إسوة أودو دي iyo koox yar oo muslimiinta 2 milyaar ku dhowna koob shaha macaanayn kara sababtoo waa maxay qolo walba waa la hor joogaayo halkiina ku gaadiya janna lagu galaayabal hays dhaqaajinina waxba ma qaban kartaan hadaad ka hadashid qadiyada Gaza argagixisa tahay hadaad ma aragtaa u hiilisid argagixisa tahay hadaad saas yeeshid saasa tahay buu ku oranay xagee marka ka ibaanaya hiil الإسلامية وما أيسن نقون وحيكو قوليسن لهي وما نقون إلهي سبحانه وتعالى توبة دبل ما أي إيمان يا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبة دبل ما أي إيمان الإسلامية الإسلامية وما سوجيدو أما هذا كمجي هيسنا إن أي أيدو أودي يلطو أو أي هب سميستو oo ay dhaqaale yeelato bil aksi iyada dhulkeeda lagu diriraya lagu shabaahtamaya la isugu imaanaya hantidoodii baa la isku dilaya waa laga qaaday hadda soo baydna dhageysan nin taraam la dhaahada adduunka u soo baxay anu waxaan isleeyahay ninkaas ilaahay baa u soo diray inuu awoodan gaalada ee hadda de meel loo maara waayay inuu burburiyo wuxuu yiri madax badan oo caalamka ay baryaysan waxay leeyihiin cashuurta naga dhig kaala hantida dalka iyaga qaado إلى وفحما أنتو كجاري وحيري حتى وحي يراهدين دبض عنو كادون كرين هل كاسو أدونكم مريا وأدون شرف دمتي وأدون قبرنما دمتي وأدون إيمانك دمتي وأدون قيردي دمتي وأدون رغنمدي دمتي وأدون ليس قميستي انت لقوك الأتكاد موجودة لكن إن شاء الله تعالى وحرجينا كوحي يرو فلسطين كده قال لما يسا انت يرو حق أقعدي انت يرو انت تبرتودا اسباب تقاتي الهي وحان uga سبحانه وتعالى هيل انو سيو الهي وحان uga baryeena mid quluubta muuminiinta ka farxiy allah inuu siiyo ilaahay waxaan ka baryeena subhanahu wa ta'ala guul lagu raaxaysto gaalana ay ku ooydo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo maxaa yeelay iyagu asbaabtii waa qaateen waa dadaaleen naf iyo maal bay hureen waxa weeye caruurtoodii iyo dumarkoodii bay hureen si ay qadiyadooda u difaacaan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala ilaahay ka rajaynaynaa inuu nasrigu yimaado hadeerba waxaad arkaysaan ciidamadii cirka intaasoo sarkaalba ihtijaaj gudbiyay oo waxay yiraahdeen dagaalka hal la joojiyo ayaa konton iyo kowda ka xiran ba u muuqata maxaabiisteedana la soo daayay kuwii ciidamadii dhulka ku biiray waxa ku biiray alaamsaca kuwii badda waxa ku biiray intaas ciidankii ihtiyaadka ahaa intaas oo kun ayaa hadda la ruqsaynaya markay diideen inay dagaalka galaan maxaa yeelay wadna diiday meesha hadda diyaaradaha lagu daqaynaya iyo madaafiice askari qori wata ma tigi karo maxaa yeelay waxa jooga wiil dhimasho raba waxa jooga wiil wax uu asagu gacantiisa ku samaystay in badan oo kamida diyaarsaday waxa jooga wiil ka sameeyay qumbulada burburinaysa dabaabada Mareykanka iyo Israa'iil ay leedahay Amerikaaba ya oo $5 milyan ku fadhida samaystay qumbulad $200 oo joogta oo dambaska ka dhigaysa wiilkaas meesha fadhiya oo dhulka ka soo baxaya dhulka
ayuu ka soo baxaya sidii geed hadda soo dhashay marka nin wadnaha la siin karo maaha dabeeta marka waa in guryaha la dumiyaa waa in caruurta la laayaa waa in dumarka la laayaa waa in damiirkooda iyo dareenkooda waa in la xanuujiya laakiin inay dhulka ka galaan mustaxiil maxaa yeelay waxa jooga wuxuu yiri odagii Soomaaliyeed waa isticmaalku inoo bidayno humaynaan haysan isagu laakiin baabuur u aas la yiraahdo iyo madaafiic iyo diyaarada iyo waxba waa wata wuxuu yiri ninbatiisu waa dhimantaho tooga beel male sawaariikh nin taabiya ninkii toori bira haysta ninbatu awoodaba dil way isugu tageena waagi Soomaalidu gobta ahayd way mawjeeda laakiin hada Soomaali iyadaaba waxay u baahan tahay in loo duceeyo ummad iskhilaafsan oo kala jeeda oo aan meel u wada socon oo aan siyaasadda ka midaysnayn oo aan dhaqaalaha ka midaysnayn oo aan ciidanka ka midaysnayn oo aan damiirka ka midaysnayn oo aan moralka iyo niyadda ka midaysnayn ummad maba noqon kartaba lidalika bal hadda waxaan kari karnaa walaalahana aanu ducayno اللهم انصر أهل غزة اللهم أطعم جائعهم واسق ظمآنهم وفك أسراهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم شهداءهم ووحد كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم أيدهم بنصرك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بإسرائيل وأمريكا وأعوانهم اللهم عليك بإسرائيل وأمريكا وأعوانهم اللهم عليك بإسرائيل وأمريكا وأعوانهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم اهزم جنودهم اللهم زلزل تحت أقدامهم اللهم اقذف الرعب في قلوبهم يا أرحم الراحمين اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم دمر اقتصادهم اللهم دمر هيبتهم اللهم دمر قوتهم يا أرحم الراحمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا غدقا عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين يا كريم يا منان اللهم وحد كلمة أمة الصومال يا أرحم الراحمين اللهم وحد كلمة الصوماليين يا أرحم الراحمين اللهم أعطهم دولة قوية تقودهم إلى جادة الطريق والصواب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شبابنا اللهم بارك لنا في نسائنا اللهم بارك لنا في شيوخنا اللهم بارك لنا في رجالنا اللهم بارك لنا في أرضنا اللهم بارك لنا في مالنا اللهم بارك لنا في أولادنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة